qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada sariibada hodan ee hore loo oran jiray jaamac gunti ee magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay safarkii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee dalka Itoobiya sidoo kale waxay sheegeen in madaxbannaanida iyo jiritaanka Soomaaliland tahay go'aan shacab isla markaasna shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaan madaxweynaha Soomaaliland waxaana intaasi ku sii dareen in bulshada Soomaaliland laga daayo hadallada la isla dhexmarayo ee lagu sheegayo in farmaajo Hargeysa imanayo waxaana sheegeen in arintaasi aanay waxba ka jirin isla markaasna ay tahay hadal been abuura dhinaca kalena waxa ay iftiimiyeen in xukuumadda Soomaaliland ku karab taagan yihiin wax kasto horumar ni hal xaaraani nirig xalaal ma dhasho ma doonana anagu Soomaaliya shaqana isku malihin farmaajo aqal haduu xukumayo goboladiisa 12 madaxweyne lahaday ha xukuumadu waa ka isaga Abiy Ahmed baan sheegaya Abiy Ahmed jaarbaynu nahay nin waxa madaxweynaha soo dhaweeyay aad baan ku soo dhaweynana kaliya magaalada Hargeysa kaalay oo Soomaaliland kaalay gacmo furan ku kaalay farmaajo shaqada isku balhima gabigiisana iman karo ninka dhiisha cabaa dhiilku ma deeqo adeerkii baa dhiishi cabay dhiilkina ma yaalaba kaga tusaale qaada Hargeysa saaka kaga tusaale qaado saaka waxaan iibinaya nimcaan ku iibinaya farxad baan ku iibinaya khayrayn baan ku iibinaya isagoo halkaas saaran baan ka seexday habeenkii farmaajo oo aqalkiisa ku kaaji waayay inuu Hargeysa yimaado yana igu agtawal Muuse Biixi wayka shalan maamulaya Hargeysa no Mudane Muuse Biixi Cabdi kumaanan dooran aqal gudihii dabad baan ku doortay waxaan leeyahay Allah Muuse taajir oo talada ku adkee mabsuud baad naga dhigtay maanka ku hagaag laba wanaagsan oo talku ku ducee haliyay weey Muuse Biixi aqiisana wuu yaqaan calooshu dadkay xumaatay miyuu toosina karaa waxaan leeyahay farmaajana hambadaad ka tagteen rabigay barakeeyay ha jaleeci farmaaje waxaan leeyahay balaayada ku haysa la fadhi halkaaga nabad baan saambusaa ku duwaayay ay xasuusin farmaaje waxaanu ka xunahay farmaajo waanu diidnay ma doonayno iyo wixii daba socda midna dan kama lihin ma doonayno ninkii badan heelaatu kala ku dara marka aqalkiisa uu soo baqtiyay qodolaya marka waanu soo dhimanay waanu soo dhibaatoonay ragaygi baan ku weynay asayaanu qaadnay tamanaasayanu qaadnay ma yeelayna mana doonayno farmaajo anagu iyo wuxuu wata dooni mayno annagu 7 madaxweyne oo Soomaaliya ka dhisan mid lala shiro caalamka loo sheegay kee lala shiraya kee la soo dhaweynaya kee la fogeynaya annagu ma garanayno waxa la yiraahdaa Soomaaliland uqaal baanu leenay culimaanu leenay maati baanu leenahay madax baanu leenahay dawlad gooni u baxday baan noo 7 dawladood hore kala baxay mid waliba gooni isu taagto la ayiday annaga taayada wax kama urin farma aqal gubanayana aqalkaaga laguma qabto aqal gubanaya aqalkaaga laguma qabto anagu aqal baqtiisan ma aragnay haduu aqalkiisa soo baqtiyo wada hadal baa naga dhaxeeya wada hadal baa naga dhaxeeya laakiin midnimo naga dhaxayso anagu madaxweynaanu leenahay maamul baanu leenahay 10,000 oo ruux baa doortay madaxweynaha iyaga aqal hoostii laguma dooran waa waadax weeyaan magaaladu dhex lugeeya aqal walba baahidi sida Umar ibn Khadaab uu wareega Muuse Biixi ninkii u bixi naga cunay dushay qaladoodii ninkii aabahood dilay arsaaqdiina naga dhacay inaan maanta doona waa ii damiir xumo waxaan salaamayaa Muuse Biixi Cabdi waad salaaman tahay madaxweynaha yaga Soomaaliland waanu salaanay aad baan u salaanay Soomaaliya maantidii hore ay cuntay ay naga cuntay caruuri ay naga cuntay iyo hadana doonaysa hambadii kale inay cunto ma doonayna farmaajo riyaaday dubleeyin dabadooda ay ku qarin lahaadeen isaga isku tumay maamul goboleedadiisi buu isku tumay war annaga nama heli kartid nama ag joogsan kartid muusana nin halkan uga xogogaalsan ma jireen afarta hudhud waxba yahay dadka soo hoos gali muxuu naga doonayaa farmaajo wuu naliqay adeerkii baa naliqay ragayagii caruurtayadii meeday maantana Hargeysaan ka dagi waxa ka soo horeeya waa diyaaradda lagu keeno meydkaaga lagu qaadi haddaad ismaqlayso weyn meydkaaga lagu qaadi meel xaafad xamara ma xukumaysid cisho walba meydkaaga yaa yaala maanta maxaad ka soo doonaysaa Hargeysa way nabad qabtaa
baanu ku daaqaynaa اعترافك ومدة كلامه كدوننا هذا ما دونينه ما ربنا تيله يبان هيسنا وكا عد يعانا يعرف بوانه هيسنا